kadib dhacdadii kufsiga ahayd ee labada hablood loogu geystay magaalada galdogob ee gobolka mudug ayaa waxaa isa soo taraya baaqyada ku aadan wax ka qabashada falkaasi. haddaba sheekh maxamed cabdi umal oo ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa tilmaamay waxa ay diinta islaamku ka qabto falkaasi kufsiga. sheekh maxamed umal waxa uu kufsiga u kala qaaday laba qaybood, waxaana uu sheegay kufsi hub la isticmaalayo iyo mid aan hub la isticmaalayn. laba xaalay culimmadu u kala qaadaan arrinta kufsiga dumarka la kufsado. midi wax weeyaan in uu ninku ama raggu ay kufsadaan dumarka iyagoo marka aan hub isticmaalin oo aan hub yacni wax weeyaan hubku noocu dooni ha ahaado saan u tegi doonno. haddii uun muxuu ahaayey xoog kaliya si kale ay iyagoon xoog yacni aan hub u isticmaalin marka ay ku kufsadaan, mas'aladaasi culimmada qaarkood waxay leeyihiin waxaa waajibaya xadka sinada ee shareecadu u dejisay. gabadhana waxaa u laasimaya dhibaatadii gaadhay in laga xaalmariyo oo meher bay yeelanaysaa sida ay qabaan alimaamu shaafici, imaamu maalik iyo alimaam axmed ibnu xambal. xanaabilada madhabka culimmadu u badan yihiin baa sidaasa. gabadhii dhibkii gaadhayna in laga xaalmariyo oo meher la siiyo, dhibkii la gaadhayna muxuu gaadhayna xuquuqdeeda la bixiyo. ninkii dhibkaa ku sameeyey ama rag badan hadday yihiinna markaasi xadka shareecada la mariyo oo haddii guur u horreeyeyna dhagax lagu dilo, haddii uusan guur u horrayninna 100 jeedal in markaa lagu dhufto, raggiina in halkaa la mariyo, miskiintan la qasbay ee la kufsadayna in markaasi sidaa loo xalmariyo. waa haddii falkaasi aan hub loo isticmaalin oo aan hadidaad iyo cagajuglayn iyo hub iyo haddaan loo isticmaalin xukunku sidaasuu noqonaya. haddiise kufsiga loo isticmaalay hub loo isticmaalo oo maalan waxa weeyaan xooggaasi uu la socday in hub loogu cagajugleeyo, hubkaasi siday culimmadu u badan yihiin xataa ul ha noqdo, xataa dhagax ha noqdo, sida uu qabo imaamu shaafici, maalik, xanaabilada, abu yuusuf iyo abu thawr iyo ibnu xasmi. culimo badani siday qabaan waxay leeyihiin xaaladaasi markaa zina way ka koraysaa oo keliyata kufsi uun la sinaystay ma ahee. markaa waxay noqonaysaa masalada la yidhaahdo xiraabadana waxaa la yidhaahdaa in uu ruuxu amniga khalkhal geliyo, jidgooyo sameeyo, uu noqdo ruux mujtamacii iyo deganaanshihii iyo nabaddiisii iyo isu socodkiisii iyo xoolihiisii iyo khatar geliya. kaasuu markaa noqonayaa, gaar ahaan marka uu muxuu ahaayey dhaawac iyo dhib la yimaado. arrintaasi marka way ka gedisan tahayoo waxay markaa gelaysaa aayadda qur-aanka ee alla yidhi tabaaraka wa tacaala: innamaa jazaa'u aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascuuna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqataca aydiihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alard dalika lahum khizyun fi ddunyaa walahum fi alaakhirati cadaabun cadiim. sidaas daraaddeed allah iyo rasuulkiisay la dagaalameen, dhulkana fasaad bay ka shaqaynayaan oo gabdhihii sharafta lahaa iyo hablihii qiimaha lahaa iyo xoolihii iyo nabadgeliyadii iyo naftii bay khatar ku hayaan. sidaas daraaddeed dhulkiina fasaad bay ka shaqaynayaan oo wadaan. dadka noocaas oo kale ah alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala abaalkoodu waa in la laayo, in la deldelo, in la googooyo gacmahoodiiyo lugahooda si isdhaafa loo gooyo, in muxuu ahay dhulka laga masaafuriyo oo la nafiyo. taasi waa abaalka ay adduunka ku leeyihiin, aakharana cadaabu weyn bay leeyihiin buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala. wax ka qabashada dhacdadan waxaa hadda gacanta ku haya qaar ka mid a culimmada puntland, xukuumadda puntland iyo weliba waxgaradka deegaanka. maxamed saalex, s b c, magaalada boosaaso.